waa la wada socdaa, qofna hadhi maayo. mar haddii qof waliba tegayo, qof walibana keligii uu mudanayo oo godgelayo, wixii ka dambeeyana halkaa waxaad ka bilowda uu tusaaluhu koowaad noqon doono. dee maalinkaad cidlada noqon doonto, dunidan ka tegi doonto, dadka qofka kuugu jecel ee kugu dhow ee kugu welweliya walbahaar badan iyo naxdin badan geeridaada uu dedejinayo inuu iskaa dhaafiyo. meel yarood aragteen oon dadka mar walba geyno oo ciriiriya intii ciidda lagugu rogo lagaaga soo tegi doono, hadday mar waliba meeshaa ku mudan tahay inaad xasuusteedana badiso, waxay kugu caawinaysaa inaad u diyaargarowgeeda badiso. oo markaad isweydiisaba su-aasha waxaa ku lamaan maxaa kaa horreeya ood geysatay. hanti ma kaa horraysaa? adduunyada waynu tabacnaa, guriya daaraha la dhisaa, sharikadiya ganacsiyaa la sameeyaa, ubad iyo ilmaa la dhalaa, wakhti badan iyo walwal badan iyo dadaal badan iyo maal iyo dunyo badan baa lagu bixiyaa, iyadoo laga eegayo mustaqbalkaaga wax wanaagsan ha kuu noqoto adiga, ilmahaaga iyo ubadkaaguna ha u noqoto. mustaqbalkaa intaa laga fikirayo haddii aad weynaato waa 60-70 wixii ka dambeeya adigaaba noloshan xamili karinba. qofku 70 hadduu gaaro, nabiguna calaih salaam uu yihi ummaddeeda acmaarteeda iyo waayeelkeedu waa un inta 60 iyo 70 u dhaxaysa. wax yar baa dhaafaya dadka inta aduu aad taqaanee waalid iyo walaal iyo ahli iyo qaraabi iyo asxaabaha, inta 70 dhaaftay way yartahay haddii baa la gaaro. haddii baad weynaatana dunidan dhibkeedu wuxuu noqday waxaad ku dhimatay dheefsan maysid. waad dadaali, waad ordi, hanti baad uruurin, ubad iyo ilmaad dhali. goortaad 40 iyo 50 soo gaarto adigoo indhahaagu 5 yihiin, adduunyadii aad tabacday waa laga afqaban. kan ha cunin, macaan baa kugu dhacay. kan ha cunin dhanaanka, dhiigkar baa kugu dhacay. kan duxda laha cunin, kolestarool baad qabtaa. kan kale iska daa, gaas baa ku haya. adigoo taagan xoolahaad ku dhimatay, dad yar caafimaadsan oo da'yara say u cunayaan, aduu indhaha unbaad ka dhowri sida loo cunayo. waxaad maqli wax gaaraan anugu cunaayo, meel bay igaga dheggan tahay. taasi waxay farriin tahay da' baa ku soo taabatay, adoo nool baa lagaa afqabtay, inta dambena ma sii joogi doontid. mardee lama horaan inoo tahay in intaa ka hor ba ajari qabanayso. waxaa mudan mar walba inaan isxasuusinno geerida, aan xasuusnaanno daar labaad baa inaga dambaysa. tabac bay u baahan tahay, mustaqbal bay u baahan tahay, sahay iyo zaad la qaatoo lala aaday u baahan tahay. haddaad rabta meel inaad u safarto aan hanti kaaga horrayn, waxoogay sahay baad uruursataa. sahay baan u baahannahay. adduunyadan iska imtixaan ka badatay, waxay geerida xasuusisteedu kaa caawinaysaa inayna naftani kuu jiidanin dembi iyo macaasi. in naftan aad ku soo dabaasho inay cibaado iyo taaco iyo tawba la timaado. intaasoo ah sahayda rasmiga ee dhabta ee lama huraanka ah. marka dadkaagu kaa soo tagaan, maalkaaguna kaa soo tago, asxaab iyo ahalna ay godkaa kugaaga soo tagaan, wixii weheelka iyo zaadka kuu noqon lahaa. adduunyada mashquulka badan ee dadkii wax miyir qababa aanu jirin, qofba wuxuu ku mashquulayba humuumteeda iyo walwalkeeda iyo walbahaarkeedaas. dee waa la mashaqo raraaye tii aakhare iyo xasuusteediina aynu ku darno.